كل وناس صاحبada qaaliga soo dhawaada maanta waxa garabkayga taagan Absalan Xarashle waa nin markii si loo fiiriyo dhiirigeliyada dhalinyarada markii si loo fiiriyana nin dhalinyarada ku buraarujiyo inay shaqeystaan Absalan soo dhawo marka hore walaal waan ku dhawahay magacayga Absalan la yiraahdaa Absalan Xarashle kulay waxaan iibiyaa dharka dumarka waxaana bartay maadada la yiraahdo macnaha fieldiga public administration waxaana ka qalin jabiyay kulliyadda maareynta iyo adeegga shacabka jigjiga laakiin كلي ما أنت شغلها هاي غيره ما أنت كشقين كرتويرتها هاي لكن هنقدر ما دام أن شغواي إن حرف إسكي أو شقيستو مهرد أنا الله ماركتي ومهرد أني بحبران ماركتين وحويان وحلوقي بعد كتمرك معيد كل كلي دريرهان ما أنت نين دريره وأنا عمل إنه حرفت معنا وكشقيه أدبي وأذكتاي كل يقف مرك واحد برتو عسلي هاي نحافظ كجوب كده تشغويش بأنت بدن كدر بيان رياضة أنا ما سنتي الشهادوين كأد برتي وحات استعدي مرك ما دام شقة كويسة إن شقة إسكوا ورطة مرك دلين يردا جريا إسكجي فو شهادوين كايستو شقة سجاله ما حد وشيء سعيد والله وحن لي لا إني سن كل شقة الهردون إني كل حسابت من حرفت مرك أيدا أي كل شقة سن كان سيد بجاج عمل sida gacan shaqo nooc walba ay noqoto inuu qofku ka shaqeysto dhalinyaradu way ka xishoodaan shaqooyinka qaar adiga ma ku dhalatay inaad mar un ka xishoodo dharkan aad geeysid may wallahi waliga kama xishoodin mana ka xishooni doona ani ahaan maaragtay xirfad nooc walba ay noqoto maanta gaar gacanta liidii ka shaqeeyaa la yiraahdo waa ka shaqeynaa deegaanka meel walba liigi caalamka meel walba aan tagana waxaan aaminsanahay in xirfadda maanta haysto inaan ka shaqeysan karo waxaa meesha aan kula kulannay dad kaaga yimaaday meel fog oo dharkaada soo raacay marka ilaa iyo inteed mataqaanaa dharka duugaysa oo lagaaga yimaada wallahi hadii ilaahay maaragtay raal ka noqdo in uu meelo badan gaarsiyo hadda deegaanka waa gaarsiya ilaa jigjiga ilaa goday meelo badan baan gaarsiya meelo aan oo halkan ka sii wanaagsan inaan gaarsiyo waan jeclaan doonaa laakiin dhalinyarada deegaanka wax barato waxaan dhihi lahay inaysan ku xisaabtamin inay shaqo dawladkii wax lagu helo shaqooyinka kale oo xoogga ah oo xirfadayaasha maanta caalamka xirfad baa wax lagu helaa kulay shaqo maanta oo 8,000 iyo maanta as leedahay hooyo aabi wax walba ku sugayaan haddii aad weyso intaan iskuul iska joog ma fiicno in dhalinyarada xisaabtamaan qofku wax bartana waa qofka ugu wanaagsan oo business wax fiican ka keeni kara ugu dambeyn waa maxay fariintaada ugu dambeysay dhalinyarada aad ku baraarujinaysa ama aad u sheegaysa waxaan dhihi lahay ugu dambeyn inaysan xishoodin xishood iska dhaafaan ay dhahaan shaqo nooc walba ay noqoto inay ka shaqeeyaan inay diin dawladda macnaha xisbiga haddii wax ka weyso guri iska joog macnaha suurtagal ma noqonaysa inay dhalinyarada xishoonin ay ka faa'iideystaan aqliga iyo garaadka iyo waxbarashada kulli qofka wax barta xirfad wuxuu keeni karaa oo qofkan waxba barnin marka qofku wax barta waxa weeyaan wax macnaha bulshada wax badan ku soo kordhin aad iyo aad waa maasanta